marka cubic equation kan ayaan maanta haysanaa oo nala ka rabo inaan solve gareyno the equation, the value of x inaan raadino, or the roots of this equation inaan raadino, or the value of x inaan raadino. marka seen ku raadin karnaa? marka waxaan isticmaalaynaa factorization method kan isticmaalaynaa. video horena example waan kaga bixiyay, marka waad fiirin kartiin. hadda waxaan leeyahay let's assume the first root inuu yahay x is equals to 1. waan isku daynaa x is equals to 1 ma noqon kara a possible root mise ma noqon karo. marka sifaan ogaanana meeshii x un baan gelinaynaa 1, marka waan fiirinaynaa haddayna siinayso 0. hadduu 0 ayna siiso marka meesha x aan 1 gelino, marka waxa weyn x is equals to 1 waa root, waa 1 root. hadduu na siin waayana marka root ma aha, or a value of x ma aha. markaan gelino waxaa noo soo baxaya 1 cubed minus 5 times 1 squared plus 8 times 1 minus 4. 0 minus inaysaa, marka 1 cubed waa iska 1 minus 5 times 1 squared na waa iska minus 5 plus 8 times 1 na waa iska 8 minus 4 den noo soo qaado meeqayna siinaysaa. 1 minus 5 waa iska negative 4 plus 8 minus 4 0 ayayna siinaysaa. marka x is equals to 1 waxaa weeyaan a possible root, waa iska actually 1 root weeyaan, hal root ayaan keenay weeyaan. marka midana waxaa weeyaan cubic equation, marka waxaan expect gareynaynaa 3 roots. marka x is equals to 1 waa iska hal root ama waa hal value. labada value inteen ka keenaynaa? waxaan ku keenaynaa through long division method kii la yaqaanay. marka x minus 1 x minus 1 ayaa waxaan u qaybinaynaa main equationkaasaan u qaybinaynaa equationkan. marka x cubed minus 5x squared plus 8x minus 4 ayaa waxaan u qaybinaynaa x minus 1 tan, x minus 1 taas. markaas because inta waxay ka bilaabataa x cubed, marka kor waxaan saaraynaa x squared baan saaraynaa. x squared times x na x squared times x waxaa weeyaan x cubed. x squared minus x squared minus 1 na waxaa weeyaan x squared times minus 1 na waxaa weeyaan minus x squared. marka x cubed minus x cubed waa iska 0 minus 5x squared minus x squared na waxayna siinaysaa minus 4x squared minus 4x squared ayna siinaysaa. marka plus 8x aan soo dejinaynaa. marka plus 8x markaan soo dejino, sababtaan usoo dejinayno sababtaan 8x usoo dejinayno meesha 2 aan ka dhigaynana waxaa weyn waxaan u qaybinaynaa ayaa 2 wax ka kooban. marka because minus 4 ay ka bilaabataa minus 4x squared, marka inta kor waxaan saaraynaa minus 4x ayaan saaraynaa. so minus 4x times x waxaa weeyaan minus 4x squared. sifaan isula bixiyo labada tan. marka minus 4x times negative 1 na waxaa weeyaan plus 4x.
marka 8x minus labatan way isla baxayaan waa iska 0 8x minus 4x na waxa weeyaan iska 4x waa 4x minus 4 daasaan soo dejinaynaa marka hadda waxaan haysanaa 4x minus 4x minus 4 marka kor because inta 4 way ka bilaabataa 4x kor waxaan saaraynaa plus 4 plus 4 4 times x waa iska 4x 4 times negative 1 na waxaa weeyaan 4 times negative 1 na waxaa weeyaan minus 4 marka way isla baxeen 0 0 marka quadratic equation keena kanaan helnay x squared minus 4x plus 4 marka quadratic equation kaasaan helnay x squared minus 4x plus 4 is equals to 0 quadratic equation kan root yaasheedan raadinaynaa labada roots oo ku jira labada roots oo naga maqan oo aan raadinayno waxaan ka soo saaraynaa through the factorization ama through the solving of this quadratic kan marka waxaan leenahay sum iyo product sumkeenu waa minus 4 waana midkan productgeennuna waxaa weeyaan waa the coefficient of x squared times the constant waa iska 1 times 4 waa iska 4 marka waxaan haysanaa laba number ayaa la rabaa inaad markaad isku dartid negative 4 na siiya markaan isku dhufanana 4 na siinayo negative 2 iyo negative 2 ayna kala yihiin marka negative 2 plus negative 2 waa iska negative 4 negative 2 times negative 2 na waxayna siinaysaa 4 marka labada number weeyaan marka hadda equation keena usoo laabanaynaa x squared minus meeshaan qorlayn middan waxaan isticmaalaynaa labada tan number marka minus 2x aan leenahay plus 4 ayaa waxay la mid tahay 0 marka labada tan maxaa common x a common x banaanka ii dhig x minus 2 ayaa gudaha igu soo haraysa labada tan maxaa common minus 2 a common minus 2 banaanka ii dhig gudaha maxay igu soo haraysa x minus 2 because minus 2 times x waa iska minus 2x minus 2 times minus 2 na waa plus 4 is equals to 0 marka labada tan banaanka jira isu keen marka waa x minus 2 isu keen bracket geli labada tan waa isku mid ka dooro waa x minus 2 aan ka soo qaadanay ayaa is equals to 0 finally the roots of quadratic equation kan waxa weeyaan x is equals to 2 or x is equals to 2 marka waa isku mid x is equals to 2 baan haysanaa marka quadratic equation teena tan waxay qabtaa only one double root waa one double root waa hal root oo laakiin laba jeer waa laba root oo laakiin isku mid ah marka horena waxaan usoo saarnay x is equals to 1 marka or x is equals to 1 root keeni hore oo aan ku keenay through gazing kadibna aan prove garanay inuu true yahay marka x is equals to 1 marka cubic equation keenu waxay qabtaa laba roots kaliya x is equals to 2 or x is equals to 1 x is equals to 2 or x is equals to 1 marka waxaa la dhahaa double solution ama double root double roots ayay qabtaa marka graafkii equationka the cubic equation kan hadda sameynaynay graafkiisu saanu soo baxay hadda sida daragtiin marka graafka waxa u muhiimsan kaliya meesha uu ka goynayo the x axis ka marka x axis ka wuxuu ka goynayaa laba meel x is equals to 1 iyo x is equals to 2 kadib meel kale uu ka goynayo malaha marka midaas waxay ku tusaysaa in the roots inay yihiin x is equals to 1 iyo x is equals to 2
x is equals to 1 iyo x is equals to 2 intaan keenay weeyaan. marka waa double roots, laba roots bas ay qabtaa ayadoo cubic function ah. haddana waxay qabtaa 2 roots because rootka saddexaadna waxa weeyaan x is equals to 2 laakiin waxa weeyaan waa iska double, waa double root. marka graafkeenu sidaas uu soo baxay. marka waa is another way to confirm the roots aad heshay by drawing the graph. graafka markaad sawirtid waxaad fiirinaysaa meesha uu x axis-ka uu ka goynayo. markaas waka waan keenay sidaas ayaad ula soconaysiin.